xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta shaacisay in lagu guuleystay xakamaynta xanuunka shiban biyoodka ee bilihii la soo dhaafay ka jiray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabad kooban oo lagu shaacinayay xakamaynta xanuunkaasi shubanka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Laanqeyrta Cas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda caafimaadka, maamulka gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco iyo qaybaha kala duwan ee dadkii ka shaqeynayay xanuunkaasi. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa xusay in xilligii xanuunka shubanku faraha baas ku hayeen bulshada Burco ay habeen kasta soo dhici jireen in ka badan 300 oo qof, hadeerna ay cisbitaalka yaalaan 6 qof oo kaliya, isagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadkii loo fidiyay bulshadii oo asiibay xanuunkaasi. waan runtii ka garaabayaa anigu waxa weeyaan magaalada waan ka warhaynay cudurkani dad badan buu inaga laayay, hadday miyiga tahay iyo hadday gudaha tahay. awgeedino xanuunkani meelo khatar buu inaga galay oo uu ugu horeeyay jeelku. ilaahay uu naxariisto intii ku dhimatay, isla markii loo gurmadayna xanuunka halkii uu isku taagay. darteed xanuunkaasi waxaan qabaa maanta dhakhtarka waxa ku jira 6 qof. markii aynu qayladhaanta ugu darana aynu dirnayna wuxuu marayay 380 ayaa habeenkiiba soo dhacayay. runtii waa wax ilaahay loogu mahadnaqa. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Jaamac Diiriye ayaa isna xusay tirada guud ee xanuunka shubanku soo ritay, sidoo kalena mas'uuliyiinta Laanqeyrta Cas ee heer gobol iyo heer qaran oo gacanta ku hayay xarumihii lagu dabiibayay shubanka ayaa iyana ka warbixiyay sidii gurmadka loogu galay xakamaynta xanuunkaasi. heeba mahadle cudurkii aynu la dagaalamanay ee xumaa haddii aan idinka warramo guud ahaan waddanka oo dhan waxaa ku dhacay dad uu tiradoodu gaadhayso 16,000 oo qof marka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan la sheego. wuxuu ka soo ilaa iyo Boorama ilaa iyo meesha la dhahar ayuu gaadhsiisan xanuunkani. wali way sii soconaysaa, laakiin hawshii weyneyd ee dhakhaatiirta ajnabiga nala joogtay mataqaanaa ha ugu weynaadaan qolada la yidhaahdo Canadian Red Cross. hay'adaha kale dawliga ee gobolka jooga waxaynu ku wada shaqeynay dhammaanteen. gurmadkii la galay wuxuu ahaa gurmad degmo iyo gobol ku kooban moohane, wuxuu ahaa gurmad qaran. ugu dambeyntiina waxaa shaada sharafyo lagu maamuusay qaybihii kala duwanaa ee sida weyn uga qayb qaatay gurmadkii loo fidiyay dadkii xanuunkaasi soo ritay. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.